salaamullaahi calaykum daawadayaal halka aad nagala socotaan waa wargal media wararka aan idiin hayno waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya Marwo Fawsiya Abikar Nuur waxa ay ka warbixisay xaaladda dadkii u asiibay cudurka COVID-19 wasiiru dowlihii cadaaladda Hirshabeelle oo maanta Muqdisho ugu geeriyooday cudurka halista ah ee COVID-19 dabaaldegga 60 guuradii asaaska xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta ay ku beegnayd ayaa waxa ay u baaqatay cudurka COVID-19 awgiis Kenya oo ku dhawaaqday in ay ka xiratay xuduudka ay la leedahay Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya oo taageero dhaqaale ka heshay midowga Yurub wararka kaloon idin haynana waxaa ka mid ah wasiir diiday in laga baaro cudurka COVID-19 kadib markii uu ka yimid dalka dibadiisa tirada dadka ugu dhintay dalka Mareykanka cudurka COVID-19 oo ka saramartay dalka Talyaaniga kadib markii ay gaartay 20,000 oo ruux intaasina waa qodobadii warka haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan fadlan daawada ha hilmaamin inaad subscribe dhahda kanalka gabaleelkana furato si ay ku soo gaaraan wararka xiisaha leh ee halkan ku baahino haddii aad muuqaalkeena ka heshayna like de siina share gare si uu gaaro saaxiibadaada dawladda Soomaaliya ayaa taageero dhaqaale ka heshay midowga Yurub safiirka midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Brolinga ayaa sheegay in Soomaaliya loogu deeqay 27 milyan oo euro taas oo loogu talagalay la tacaalida cudurka COVID-19 oo adduunka faraba'an ku haya Nicholas Brolinga waxa uu sheegay inay ka taageerayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya la dagaalanka cudurka COVID-19 waxa kale uu sheegay inay ku garab istaagi doonaan dhaqaale badan geesta kalena wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland oo markaasi ka yimid dalka dibadiisa ayaa diiday in la karantiilo inta xaaladiisa ay ka kala baxayso ama laga ogaanayo in uu cudurka ka badqabo iyo in kale afhayeenka xisbiga wadani oo ku tilmaamay nasiib darro arintaasi xilli uu ka soo laabtay dalka UK oo cudurka faraba'an ku hayo Mareykanka ayaa waqti xaadirkan waxa uu noqonayaa dalka ugu dhimashada badan marka la eego dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 caalamka oo dhan waxa uuna xitaa ka dhimasho badan yahay dalka Talyaaniga xogtii ugu dambeysay oo ay shaacisay jaamacadda Johns Hopkins ayaa muujinaysa in gudaha Mareykanka cudurkaasi uu ku laayay 20,000 oo qof arrintan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli maalin kaliya oo ay ku geeriyootay 2,000 oo qof dalkaasi cudurka COVID-19 awgiis wasiiru dowlihii cadaaladda ee Hirshabeelle Xildhibaan Khaliif Muumin ayaa goordhow magaalada Muqdisho ugu geeriyooday cudurka COVID-19 oo maalmihii la soo dhaafay uu la xanuunsanaa wasiirka ayaa waxa uu ka mid ahaa 9 ruux oo dhawaan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay sheegtay in laga helay cudurka COVID-19 oo dhibaato ku hayo guud ahaan caalamka wasiirka oo ku geeriyooday isbitaal ku yaalo magaalada Muqdisho isbitaalka Martini wasaaradda caafimaadka ayaa si rasmi ah u shaacisay geerida wasiiru dowlihii wasaaradda cadaaladda Hirshabeelle Xildhibaan Khaliif Muumin hase yeeshee wasiirka Allaha u naxariistay wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan Hirshabeelle ayaa xaqiijiyay geerida wasiirka ku timid wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Fawsiya Abikar Nuur oo ka warbixisay xaaladda caabuqa COVID-19 ayaa sheegtay in qaar ka mid ah bukaanada xaaladoodu ay soo hagaagayso kuwaas oo lagu karantiilay xaafadahooda
wasiirka waxaa kaloo ay sheegtay in cudurka uu si tartiib ah ugu baahayo bulshada iyadoo weliba digniin u jeedisay bulshada ku aadan cudurka COVID-19. daawadayaasheena sharafta leh, intaasi waxaa ku dhan guud ahaan warkii ood kala socoteen Wargal Media. intaan dib u kulmi doono. Salaamu calaykum.